bismillaahi araxmaani iraxiim kusoo dhowaada jaalka maalmaha. waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u cajiib ah. qisadan ayaa waxay dhex martay taabiciga weyn ee lagu magacaabo maalik binu diinaar iyo nin tuug ahaa. habeen habeenada ka mid a nin ku caanbax tuugnimada ayaa wuxuu soo booday guriga maalik binu diinaar. wuxuu isku dayay inuu guriga alaab ka qaato, balse waa uu waayey. isaga oo guriga ku dhex jiro ayuu wuxuu arkay maalik binu diinaar oo dukanayo. imaamkii markii uu salaada ka baxay ayuu ninkii u yeeray. markaasuu wuxuu ku yidhi, adduunye ayaad soo raadisay, waadna weysay, ee ma kuu sheegaa wax kaga khayr badan oo yaal aakhiro? imaamkii wuxuu bilaabay inuu ninkii wacdinayo. ninkii aad ayuu ula yaabay. wuxuu naftiisa ku yidhi, nin aad gurigiisa u soo gashay inaad wax ka xaddo, haddana aan waxba kugu samaynin, islamarkaana ku waaninayo, waa arrin lala yaabo. kadib wuu fadhiistay, wuxuuna bilaabay inuu dhegaysanayo hadallada uu ku leeyahay maalik binu diinaar. ninkii isbeddel ayaa ku dhacay, aad ayuuna u ooyey. isaga oo la fadhiyo ayaa waxaa la gaaray salaaddii subax, waxayna soo wada aadeen masjidka. dadkii markii arkeen ninkan tuugga ah oo dadka dhan ay yaqaanaan iyo imaamkii ooda socdo, waa ay la yaabeen. waxayna isweydiiyeen sababta keentay inay wada socdaan. kadib imaamkii ayay weydiiyeen. wuxuu yidhi, ninkani wuxuu soo galay gurigeenna isaga oo doonaya inuu alaab naga soo xado, balse innaga ayaa qalbigiisii xadnay. imaamka ayaa wuxuu ula jeeda arrintaani, ninkani wuxuu u yimid inuu xado, balse markii uu waaniyey wanaaggiina u sheegay ayaa qalbigiisii isbedelay, islamarkaana xaqii alla tusiyey subxaanahu wa tacaala. qisadan waxaan ka faa'iideynaa qiimaha ay leedahay kelimadda wanaagsan. waxaa laga yaabaa inaad qof ku tiraahdo kelimad wanaagsan oo uu ka dhaxlo in mustaqbalkiisi wax badan iska bedelo. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, kelimadda wanaagsan waa sadaqo. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh gameelkan reex si ay kuu soo garaan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.